Emily Ismail halkan waa Somali Ohio News waxaana joognaa shirkii shanaad ee dhalinyarada qurbaha ku nool North America maanta halkan waxaa ila jooga Cabdiqani Diini oo ah gudoomiyaha Somali Diaspora Support Initiative kusoo dhawow programkanaga. Thank you. Su'aasha ugu koowaad rabo maanta inaan ku weydiiyo ayaa waxay tahay dhalinyarada maanta jirta kuwa ku soo koray wadankan ama ku dhashay wadamada shisheeyaha like dhalinyarada ka yar 30 sano ama waxay ku dhashay wadan shisheeye ama waxay ku soo koray wadan shisheeye dhibka ugu badan oo maanta haysta ayaa wuxuu yahay dhaqankii oo ka halaabay inta badan sababtoo ah cunugii gurigii wuxuu kala kulmaa dhaqan gaar ah bulshadii uu la deganaana dhaqan gaar ayuu kala kulmaa taas maxaa laga bedeli karaa oo maanta inta laga caawin karaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo adiga iyo bahda TV-ga SON Somali Ohio News mahad celinka bacdi su-aashayda haddaan u laabto saad sheegtay waa problem ka jira oo maanta itoona haysta waa dhallinyaradeenii ku dhalatay ama ku barbaartay qurbaha waxa ugu badan oo la oran karo maanta waa haystaan oo culayska ugu badan koosgareeyna waxaa la oran karaa waa culture-kii waxaa dhumay culture-kii in badan eedda waxaa la saarayaa oo iskale waalidiinta sababto waxaa weeye waalidkii waxaa laga yaabaa cunuga inuu ka fakero keliya sidii uu ama high school uga bixi lahaa ama uu jaamacad u dhigan lahaa oo keliya laakiin uusan ka fakerinin first of all inuu ilaaliyo cunugan dhaqankiisii maxaa yeelay bulshadu dhaqan bay leedahay annaguna dhaqan baan leenahay dhaqankayaguna wuxuu ku salaysan yahay diinta islaamka soo marka waalidkii hadduusanba focus garaynin oo uusan xooggaba saarin in ilmahan uu dhaqankoodii iyo akhlaaqiyaadkoodii iyo diintoodii uu dhiso waxaa imaanaysa inay ilmihii ay dhumaan oo ay u gacan galaan cid kaleeto ama ummado kaleeto ama culture kaleeto si taa iyadaa looga baxo waxa ugu wanaagsan oo anagu antal ahaan aan qabo waxaa weeye waalidku in ay ilmahooda waxa ugu horeeya oo ay kula dadaalayaan ay noqdaan inay horta diintooda ay gacanta ku hayaan oo ay diinta kula dadaalaan second qodobka labaadna inuu noqdo dhaqanka sababto waxa weeye culture-ku mararka qaarkood waxa uu difaacaa qofka bini aadamka ah sidaad og tahay ummado badan ba hadda haddaan ka soo qaadna hadda North America nala degan oo waqtiyo hore soo galay ama waqtiyadii annagu aan nimid yimid qaarkoodna waa dhumeen qaarkoodna weli waxaad u qabtaa inay shalayta ay yimaadeen waxaana keenaya culture-ka iyo diinta dadka Asiyaanka qaarkood haddaad fiiriso dhulkan Pakistan iyo dadka ka imaanaya Afghanistan iyo hadda dhulkan nugula nool ama dadka hunuudda ah oo kaleeto haddaad aragto waxaad arkaysaa inaan ilmahoodii aysan isbedelinin oo ay sidii waqtiga ay yimaadeen ama ay ku dhasheen dalkaanba ay yihiin ama ka wanaagsan yihiinba waxa keenaya marka waxa weeye culture-kii iyo dhaqanka diintooda oo ay haystaan qodobka kale oo saddexaad oo muhiimka ahi waxa weeye in ilmaha dhulkooda la geeyo sababto waxa weeye cunugaani halkaanu ku dhashay wuu ku barbaaray dhulba inuu leeyahay ma yaqaano dawlad inuu leeyahay ma yaqaano maanta haddaad tiraahdo dawlad ma leedihiin yaa madaxweyne ka ah Soomaaliya haddaad tiraahdo cunugii ma yaqaano sababta keenaysana waxa weeye waalidkii baan barbarininba soo qodobka saddexaad oo marka aadka muhiimka u ah waxa weeye waqtiyada ilmaha fasaxa ay leeyihiin oo iskoolada la xiro in waalidiinta intii awoodooda ay tahay oo awoodi kara inay qaadaan ilmahooda oo ay geeyaan dhulkii si ay u bartaan ilmuhu culture-kii diintii iyo dhulkiiba ay u bartaan oo maasan intee in la eg ayay bulshada Soomaaliyeed ka qaadan kartaa taas sababtoo ah dhaqan guri kaliya kama yimaado bulshada oo isku dhameystiran oo guud ahaan ayuu ka yimaadaa meelaha community-ga sida dugsiyada iskuulada Soomaaliga ciyaalka lagu baro ama bulshada in general intee talaabo laga ka geysan kartaa taas sida aad og tahayba waxa ugu daran oo horta qofka bini aadamka bedela waxa weeye waa bulshada maxaa yeelay qofka maamaha Soomaaliyeed baa waxay oranaysaa ii sheeg saaxiibka ka tahay ku sheegay macnaheedu waxa weeye qofku waxa uu mar walbaaba xiriirka cidda uu la leeyahay ama uu ku xiran yahay
saamaynta ugu weyn bay waxay ku leedahay noloshiisa iyo futurekiisa. bulshada marka hadday tahay bulsho isku xiran, community ahaan isugu xiran, dhaqan ahaan isugu xiran, bay-ad ahaan iyo deegaan ahaan isugu xiran, waxay badbaadin karaan awlaadooda iyo ciyaalkooda ayay ka badbaadin karaan dhibaha faraha badan. haddaad hadda fiiriso dadka sida goonida u degan ama meelaha qaarkood degan iyo dadka soomaalida dhex degan oo ay isla degan yihiin soomaalidii, waxaad arkaysaa labadaa ilmood isku dhaqan maaha. cunugna isagoo labadoodiiba waxay ku dhasheen kaba soo qaad North America ku wada dhasheen, iyagoo ku wada dhashay North America bay haddana labadoodii kala culture duwan yihiin. maxaa yeelay midna waxa weeye ciyaalkii banooniga la ciyaarayaa, hooyadii oo waalid weyn oo arkayaa, ayeeyadii buu arkayaa, environmentkii iyo dadkii dariska ahaa buu la soo ciyaaraya oo la nool yahay. midna waxaa laga yaabaa inuu maaragtay meelaha xaafadaha ka fogfog oo kaleeto, meelaha soomaalidu degto dadka dega, inta badan cultureka iyo dhaqanka iyo actingka ay suubinayaan oo dhan waa dadka ay la degan yihiin. marka communitygu waa waxa ugu weyn oo janji garayn kara ilmaheeni, janji garayn kara haddii communitygu uu caafimaad qabo. sometimes waxaa dhici karta communityga laftigiisii inuusan caafimaad qabinin ama uusan ka shaqaynaynin sidii ilmahan ay u badbaadin lahaayeen. tusaale waxaa dhici karta in communitygii ay jiraan caruuro fara badan oo halaabay ama la dhihi karo yani way dhumeen oo waxbarashadii bay ka dhumeen. haddii ay communitygii dhex joogaan oo dadkii ay meel wada degan yihiin, ilmahaasu waxa ay sabab u noqon karaan inay kuwii kale oo wanaagsanaa laftigoodii ay haleeyaan. taa macnaheedu waxa weeye communityga laftigiisii baa marna shartiisa iskale marna khayrkiisa iskale. in lala noolaadana khayrkeeday leedahay oo markuu wanaagsan yahay, in lala noolaadana sharteeday leedahay waa markii communityga laftigiisii uu xun yahay oo uusan awoodi karin inuu isagiina wax badbaadiyo. su-aasha kale oo aan qaba ayaa waxay tahay maanta rabo inaan ku weydiiyo gabdhaha waxbarashadooda. waxyaabihii panelka ay ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahayd sababta gabdhaha qaarkood wax loo bari waayo. waxaa ka mid ah lacagta oo kale, dhaqaalaha reerka oo kale. mararka qaarkood dhaqaalihii ayadii uu jiro, dhaqankii uu jiro, oo sababta dadka qaarkood ay diintii ku saleynayaan, haddana waalidka qaarkiis islaan hadda umushay oo kale, hadday gabar yar ay leedahay oo kale, waxay rabtaa inay gabadheeda guriga uga adeegto laakiin intay iskuulka u diri lahayd oo kale. laakiin waxa waaye long term versus short term girls oo kaleeto. marka see looga dhaadhicin karaa waalidka haddii ay gabadhooda maanta wax baraan oo ay u diraan iskuulka, in ay bulshadeeda, gurigeeda, hooyadeed, dadkoodii ee qof walba ee waxay soo baratay ay kusoo celin doonto. bismillahi raxmaan raxiim. arrintaas panelkana waa ku jirtay markii la isbarbar dhigay wiilashii iyo gabdhihii. waa arrin oo xaqiiqa oo aan qirayaa jirta. maxaa yeelay aabbaan ahay caruur leh. wiilasha iyo gabdhuhu runtii way kala fahmo badan yihiin oo xataa waxbarashada laftigeedii marka laga hadlayo gabdhaha waxbarashada ku fiican. at the same time gabdhuhu way ka naxariis badan yihiin, wayna ka raxmad badan yihiin wiilashii. oo waa tii aanu ka hadlaynay dhaqaalaha laftigiisii. maxaa yeelay gabadhii waxa weeye waa multitask waxay u shaqaynayso. waxbarashadii oo ay ku fiican tahay, gurigii oo ay ka shaqaynayso. tomorrow markii ay reer iyo guri iyo caruur ay yeelato, ay maaragtay reerkii ama waalidkii dhalay ay still caawinayso. meesha laga yaabo wiilku haddii uu reer yeesho kaleeto inuu waalidkii uu gooyo. arrinta marka in gabdhaha waxbarashada aan loo dirin runtii waa arrin culture ah, ma ahan arrin ku salaysan dhaqaalo ku salaysan. xaqiiqda runta ah sababta waxa weye dib markaan u laabano dhaqankeena Soomaaliga, dadku baadiyay kusoo koreen. baadiyaha xoolaa la haystaa oo dadku xoolo leey weeye. gabdhaha waxaa la raaciyaa, xoolaha la raaciyaa, arigoo kalea la raaciyaa. kaba soo qaad qoys kasta oo Soomaaliya wuxuu leeyahay arig, waa waxa bayska u ah. waxaa laga yaabaa inuu ama loo ku darsado ama geel uu ku darsado, laakiin waxa bayska waa arig wey. yaa raaca ariga? aan isweydiina marka questionkaas. ariga waxaa raaca gabdhaha raaca. baadiyaha marka aqoon kale kama jirto, waxaa ka jirta dugsi baa ka jira. dugsiyay qabsadaan reer baadiyo. waxa qur-aanka la baro oo qur-aan ka dhigtaahi waa wiilasha wey. sababtuna wax kaleeto maahana gabdhihii waa la adeegsanayaa. dhaqankii isagaa laftigiisiibaa soo minguuray dadkii, maadaama originally annagu dad reemiyi aanu nahay. magaaladii markii la yimid
gabadhii meeshii ariga laga raacinayay gurigii bay joogtaa, canjeeladii bay dubaysaa, qadadii bay karanaysaa, ilmihii aadayey dugsiga inay qadadii u diyaariso wey, dharkii inay u dhaqdo wey. waalidkii marka wuxuu ka fakerayaa inuu si kale ugaga faa'iidaysto meeshuu shalay ariga uu raacinaya ugaga faa'iidaysanayay, maanta inuu guriga ugaga faa'iidaysto. laakiin falilahi alxamdu hadda waxaad moodaa dadku inay isbedelayaan sida bay-aduba ay isu bedelayso, sida dhaqankuba uu isku bedelayo. maxaa yeelay dadkii xadaarad baa timid, waxbaa la bartay, dad badan oo wax bartay baa dibadaha u baxay oo weliba gabdho u badan. sidaa hadda aad aragtayba loola dagaalamayo gabdhihii iyo dhulkii iyo Soomaaliya oo dhan baa haddaan tusaale ahaan usoo qaadano, waad ogeyd gabdhihii shalayto gudniin fircooniyaa lagu suubin jiray. maantaito dagaalka ugu badan oo lagu qaaday waxa weeye in la istoobgareeyo oo la joojiyo, xataa baadiyihii dhaqanku uu ka jiray in laga joojiyo. waxaa keenayna waxa weeye gabdhihii wax bartay oo banaanka wax kusoo bartay balaas culimadii iyo dadkii diinta lahaa. marka arrintaa iyadaa waxaad moodaa inay hadda sii dhammaanayso, waalidiintuna hadda ay ku qanacsan yihiin gabdhahooda iyo wiilashooduba inay isku mid yihiin, isku sina ay uga faa'iidaysanayaan hadda iyo sida muuqaalku uu yahay. su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxay tahay maxaa usoo jeedinaysaa dhalinyarada maanta waana ah weliba kuwa kusoo koray wadankan ama ku dhashay oo aan Soomaaliga aqoonin ama uu ku adeeg yahay ama wadaninimada ay ku yar tahay? bismillahi raxmaani raxiim. arrintaa iyadaa waxaan anugu oran lahaa, maantana waan iga ka hadlayay, dhalinyaradu waxaa horta ugu horeeya oo looga baahan yahay waxaa weeye inay horta diintooda ay bartaan. maxaa yeele qofku markuu diintiisa barto ayuu wax anfici karaa, markaas nafsadiisiiba anfacay, naf kalena u anfacaya. labo, in uu culturekiisa iyo dhaqanka uu leeyahay uu barto, uu ogaado inuu dhul leeyahay, uu ogaado inuu dal leeyahay, uu ogaado in uu leeyahay ummad uu ka dhashay inuu leeyahay. qodobka kaleeto waxa weeye dadka dhalinyarada ah maanta waa inay ogaadaan inay mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhulkoodii. qofku inuu iska noolaado oo isagu keligii wax iska barto oo uu yidhaahdo anigaa wax baranaya, degree baan qaadanaya, maaragtay master baan noqonaya, PhD, uu caqligiisu fikirkiisu uu ku ekaado siduu u noolaan lahaa mustaqbalku wanaagsan. sidaa maaha. mustaqbalka wanaagsan waxaa weeye isagoo wax baranaya haddana waxa uu baranayo inuu ogaado oo uu ku talagalo inuu ummadda iyo dadka iyo dalkaba uu ku anfaco. arrinta kaleeto oo aan raba inaan aada u baraarujiyo oo runtii arrinta dhalinyarada aan ku arkay waxaa weeye dadka ay ku dayanayaan dhulkan aanu joogno. wax ugu wanaagsan oo lagu daydo ilaahay subxaana wa tacaalana uu sheegay waa rasuulkeena sala allahu alayhi wasalam. wixii intaa ka soo haray waxa weeye waa dadkii wanaagsanaa, saxaabadii, culimadii, dadka wanaagsan, waalidiintii, qofka wanaagsan in lagu daydo. dhalinyarada waxyaabaha aan kala dardaarmayo waxa weeye oo runtii dhaqankoodana aad ka arkayso inay inta badan actigaraynayaan ama ay koobigaraynayaan wax aan dhaqankoodii aysan ku jirin, dhaqanka suubanna uusan ku jirin, diinta aysan ku jirinin, dhaqanka Soomaaligana uusan ku jirinin. marka inaysan koobigaraynin waxa aan dhaqankoodii iyo kii islaamka midna aanaysan ahayn, oo ay ku daydaan dhaqankii islaamku siduu ahaa iyo dhaqankooda wanaagsan ee Soomaaliga sida uu yahay. ardada khaasatan waxaan si gooniya ugala dardaarmayaa inay ogaadaan maantayto mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran, dhul ahaan ka saaran, inay tahay ardayga isaga la midka ah, inuu dareemo inuu jiro arday isaga la mid ah oo jaaniska uu hadda haysto aan haysanin, aan waxbarasho haysan, caafimaad aan haysan, raashin aan haysan. isagoo ilaahay ku mahadinaya intaas inuu helay, haddana inuu isku dayo ardayga kale oo isaga la ejka ah oo maanta dalkii ku nool inuu intaa u gudbiyo, wax un inuu uga gudbiyo oo wax un uu taro. si uu wax u tarana waa inuu isagu meel ka soo baxo oo meel iska soo saaro. in badan waxaad arkaysaa ardadii oo runtii arrin dhacda ah, waxbay baranayaan, waxay ku leeyihiin maaragtay waxbarashaan ku jira, sanadaad fara badan bay isaga dhex jiraan waxbarashadii. qaarkood waxaad arkaysaa undecideds, waa waxbarashu iska wadaa, ma oga meeshuu u socdo. taasna waa waxa dhuminaysa ardada. waxaan oran lahaa in arday walbaaba uu yaqaano og yahayna meeshuu u socdo, targetka waxa uu tiigsanayo inuu og yahay. maanta muxuu rabaa
caafimaad miyuu rabaa inuu barto, economics miyuu rabaa inuu barto, electrician miyuu rabaa inuu barto, inuu og yahay by the time uu kasoo qalinjib yahay iskuolkaba jaamacaddiisa uu galo inuu yaqaano oo uu og yahay subjectiga uu baranayo. taas waxay siyaadinaysaa inuu ardaygaasu timekiisa iyo dhaqaalihiisa intaba ay u safe garoobaan. intaasna waa dardaaranka aan siinayo ardada sida goonida wax u baranaysa. waa mahadsan tahay cabdikaasi. wuxuu ahaa cabdiqaadir diini oo ah gudoomiyaha ururka SDI Somali Diaspora Support Initiative. Thank you. هذا يوم ما